استقامة مركا حال حتى طبقات كستو مسلمين تكمل كل غلادة هاي سادين توقسقنا الله الدليل بلغوها يا دليل هذا بكانا تهينا نبي أيوب أو دليل نبي أيوب سديد يتوصلوا بكانا هاو قد هزي في مرنا إلهي طاعة دي سيدك رجيس مدينين يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إلهي بانكو حمدنينا إنه داقي دينتا إسلامك midkeenna ma weydiisan oo ilaahu aniga muslim iga dhig ma odhan laakiin ilaahay baa inoo qadaray. islaamnimaduna waa nicmada ugu weyn ee ilaahay bixiyo weeyaan. ilaahay muslim uu ka dhigay uu ku nicmeeyay. dad fara badan baa adduunka dusheeda inagula nool. qaar cadcaday caabudaan, qaar dayaxay caabudaan, qaar dab ay shiteen bay caabudaan, qaar biyo meel maraya bay caabudaan, qaar baa lo-da caabuda lo-da, qaar baa saliib bay caabudayaan, qori iyo dhagax isku gegeeyeen ayay baahidooda u sheeganayaan ilaah moodayaan. qaarna waxba maba caabudaanba, iska nool yihiin, iska cunaan, iska cabaan, way isfuulaan, way dhalaan, way dhintaan. dadka nuuciyada faraha badan leh adduunka dusheeda inagula nool ayaa ilaahay jalla wacalaa innaka uu inaga dhex doortay uu inaga dhigay dad muslimiin ah. kulla mawluudin yuuladu cala alfitra buu nebigu yidhi, ilmo kasta oo dhasha fidrada islaamka ayuu ku dhalanayaa. fidradiisu isagoo alla ay taqaana ayuu dhalanayaa, ama labadiisa waalid unbaa yahuudi ka dhigi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ama nasraani ka dhigi, ama majuusi ka dhigi, ama maaragtaanay wax kale ka dhigi. waa bi-adda qofku kolba bulshada uu ku dhex jiro ayaa saameyn noloshiisa ku yeelanaysa. waa ilaa ilmo kastoo adduunkan yimiday isagoo fidradiisu alla ay taqaano ayuu dhalanayaa. marka ilaahay jalla wacalaa innaka wuxuu inaga dhex dhaliyey dad muslimiina oo meel walba masaajidii inooga dhisantao adinkii laga maqlayo. islaamnimada marka ilaahay baa bixiya. yaa bixiya. haddaan nicmo kale laynoogu darin oo iyada keliya laynagu dhaafo ayadaa nicmo inoogu filan. diinta islaamka nicmo kuugu filan. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xadiid
maalinka qiyaamaha dadka adduunyada soo maray kii ugu barwaaqo badnaa ayaa la keenay buu nebigu yidhi kaasoo laakiin ahla naar oo naar loo sii wado hal mar keliya ayaa la qaadi oo deedna naartaa la gelin waa laga soo qaban oo la weydiin oo lagu odhan doonaa weligaa ya allaha intaad adduunyada ku noolayd wax barwaaqa iyo nicmada ma ku soo martay may buu leeyahay ilaahay baan ku dhaartee badhaadhe iyo barwaaqa haba yaraatee anigu maba arag buu leeyahay waa dadka adduunyada soo maray kii ugu barwaaqada badnaa ee ugu nicmada badnaa ayaa la keenayaa maalinka qiyaamaha laakiin isagoo ahlu naar ah hal mar keliya oo naarta la geliyey oo laga soo celiyey ayuu nicmadii adduunka taallay oo dhan uu ku halmaamay waxaa kaloo lala iman buu nebigu yidhi dadkii adduunyada soo maray kii ugu nolosha adkaaya ugu xaggiisa ugu imtixaanka badnaa ee adduunyada dusheeda dadka lagu imtixaamay kii ugu nolol liitay ugu nolol hooseeyey kaasaa banka qiyaama la keenay laakiin isagoo ahlaljanna hal mar keliya jannada la gelin oo laga soo celin oo la odhan doonaa intaad adduunyada ku noolayd dhib iyo rafaad iyo mashaakil ma la kulantay hal mar intuu isaguna ilaahay ku dhaartay ayuu leeyahay maya ilaahay baan ku dhaartay wax dhibaata maba arag buu leeyahay anigu adduunyada nicmadeedii oo dhan kii la siiyey ee dadka adduunka soo mara ugu nicmad badnaa maadaamuu gaalnimo adduunyada uu ku noolaa oo gaalnimona ku dhintay hal mar keliya oo naarta la tusoo la geliyey ayuu nicmadii oo dhan ku halmaamay dadkii adduunyada soo maray kii ugu nolosha adkaana oo islaamnimo iyo iimaan iyo tawxiid la dhintayna hal mar keliya oo jannadii la tusay ama jannada intoo la dhex joojiyey laga soo celiyey ayuu mashaakilkii adduunka ku soo maro dhan ku halmaamay marka islaamnimada ilaahay baa bixiya ilaahay baa islaamnimada inoo qadaray waa inaan diinta islaamka aan ilaahay ugu mahadino weeyaan oon istiqaamo ku yeelana istiqaamo diintu waxay u baahan tahay in lagu sugnaado istiqaamadana qur-aanka ilaahay meelo fara badan baa ilaahay kaga hadlay oo nebigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam amar baa lagu siiyoo la yidhi fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka adiga moxamedow diinta ilaahay kuu doortay islaamnimada ilaahay ku siiyey ee shaqana lagaaga dhigay ku toosnow baa nebiga lagu yidhi oo ku toosnow oo ku qumanow adiga iyo ciddii ku rumaysay ku raacdayba waxaa laynaga rabaa diinta inaad ku sugnaataan oo istiqaamo ku yeelataan nebigeenna calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid oo yidhi qul lii fi lislaami qowlan laa as'alu canhu axadan hayraka yaa rasuula allah diinta islaamka qowl iga dheh oo meel iiga taabo meeshaasoo adiga dabadaa cid dambana aanan weydiinnin markaa buu nebigu yidhi qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi ilaahay baan aaminay oo ilaahay baan rumeeyey kamaa huwa biasmaa'ihi wa sifaatihi jalla wacalaa uma istaqim deedna ilaahay markaad rumaysid ee diinta islaamkana aad rumaysid ee diin u qaadatid ku toosnow oo ku sugnow baa lagu yidhi laana adduunyadani waa daar dadka lagu imtixaamayo siday maalmuhu isku bedelayaan ayaa bini aadamkan xaalaad waxa la soo darsaaya kala nucnuuca sida maalinka iyo habeenku isku daba socdaan ee jiilaalka iyo guguna isku daba socdaan ee abaarta iyo barwaaqaduna isku daba socdaan ee habeenka iyo maalmuhuna isku daba socdaan ayaa bini aadamkan imtixaanka la soo darsayana waa isdaba soconaya isaguna ma kala go'ayo bil keliya hal bil ayaa bini aadamku xaalad keliya ku wada jiri karayn bisha waxaa laga yaabaa 7 cisho horeysan inaad faraxsanaatid 7 dhaxana maaragtaan wax ka murugsiyo aad ay kula kulmaanood murugootid 7 ku xigtan inaad caafimaad qabtid 7ka dambana waxaa laga yaabaa inuu xanuun kugu dhaco xumad iyo lafa garaac la dhacdo waa xaalad nolosha dhan baa caynkaas waxaa laga yaabaa sanadkan inaad ahaatid sabool faqiira kal dambana waxaa laga yaabaa inaad xoogaha jeebadaad ku haysatid adduunyo yar sanadkan waxaa laga yaabaa inaad ahaatid nin dhallinyaro ah kal dambana waxaa laga yaabaa inaad noqoto nin xaslay oo reer leh sanadkan waxaa laga yaabaa inaad ahaatid nin caafimaad qabo boodayo ordaya kal dambana waxaa laga yaabaa inay ku qoran tahay inaad jiifto sariirta dul taallo sanadkan waxaa laga yaabaa inaad ahaato kuwa noolnool ee adduunka dusheeda dul tallaabsada kal dambana waxaa laga yaabaa inay ku qoran tahay kuwa dhimanaya qabriga ku jira inaad ka mid noqoto wamaa tadri nafsun maada tagsibu gadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut
إن الله عليم خبير بريتو لو واحد لك ولا سو درسا يا أديكو ما أجد ماشى قبرك ونقولين أديكو ما تقانين إلهي وعليم وحمانت أدوية كذا عيان إسقى أقان أوله وخبير ويانو وحولي أدونك أنا كدعينا كسوة صعدنا ككلي أوجي يقان وإلهي تبارك وتعالى بركة دارتن وين دوقاتها ودار الاختبار أرضي سكولك مركو سقال بلود ودكتور كلاسكا بيش السقال أضحوا في سنة واختبار امتحانك محل لوقا قاضية وعلى كلا صار يا كيد دالي كيب أنا عند دالين من مركا وباصيا كيب باصيا مركا كيد دالي تعليم تأسو جيدي النظام كمدرسة سكولك إلى لين يه وحبرشة كود دالي امتحانك مركو أسو فريست وباصيا كي كلا سوق إسك جوجا عيار يينا كاسنا وكود عيا بركة أرضي فريدك ما ركتاني وناق بدن له وحبرشة كفي عن متقنك يا أرضي بليدك مركا هلك لقوك على صار امتحانك أدونك دوش يدنا وح امتحانك إلهي حق يسوون نوقك كان يا وحك لماها ولا إنك الربا يا مركا أي إيمانك يا إسلام لماذا يا الدين تكس جنانا يا استقامة يا لنا يا أي سد بيله قاضي يا لذلك علماء وحيد أذان حق استقامة مركا كهل يانا أفرتن آيات سورة الغاشية وقدم بيسا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر أفرتا آيات بعلماء كليهن والصفات لقد دونا يقفك مؤمنك صفات القرآن كان لغو شيغي هذه حيوان لغو شيغي هذه بور لغو شيغي هذه السماء لغو شيغي مقصودك السماء ماها مقصودك وحل لو جيدا أيها البشر بالغليهي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت قيل ما في ريانا بإلهيري وصدانو أبورنا ما إيغانا كعبر قاتانا صفة وقيلوا ليهي ومحي وتواضع دول إسدق قيلوا مكبر كبر مالا قيلوا معلومات دنبات بيها كيلا لنساء وكل قضية أدوك بيها لأن من نولان كريسيد لكن إساقو شان يتبان معلومات لغايا بقيلوا بلا بيها إنو كل الصعود وكو أضيعه ولي بعدك ما ركتان أمر كأجنا أوقات أوردن بعدر كيسا أيو المير هجان كي توقف تبو فريسين يا أو فريسن أو كعنا يا أو كعيا رركو صار يا أو قاض يا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم مركز عليسك أي نقاد ساب إلى حي عليسك reeraha ku guuraya waa safiinatu saxraa bi carabtu ilaadan geela waxaan bini aadanku ay sameeyaan oo dhan sanacada ilaahay u dhigmi maayaan waxaan adduunka bini aadanku ay sameeyaan bila biyo ma socon karaan bila petrol ma socon karaan bila sawaaqna ma socon karaan laakiin awrka adiga fuulaya deedna uu ku kaxayn baabuurka adiga weecin laakiin awrku jarka isaga ka weecan dameerka maadaa weecin mise isagaa weecanaya markaasaa la caayo leeyahay hor dameerkan cadhoon maayo kaa tegi maayo oo kuu khidmaynaya waad soo kaxaynaysaa isagoo iminka dhaankii ka yimid oo laga keenay dixdii oo qarbidadii laga dhaadhiciyey baa haddana qarbidka lala saaraya waan daalay muu odhanaya waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuha waziinatan wayakhluqu maa laa taclamuun ilaahay baa kuu sakhiray tabaaraka wa tacaala marka lagu leeyahay afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat waa inaad eegtaa sifaadkooga waa inaad eegtaa sifada ilaahay ku abuuray geela waa maxay in nirigta lagu sii deynayaa hashi markay godlato ayaa nirigta laga qabanayaa deedna ninka geeljiru gorofkiiba la hoos imanaya ciyaalkiisiiba caanaha uga maalaya iyada ilmahaygiina halkan uu eegayaa uu ololayaa uu ku soo eegayaa yaa kuu sakhiray marka harraati keliya ka soo hadhi mayside laakiin waa taskhiir ilaahay baa kuu sakhiray marka ilaaha kuu sakhiray adiguna ha iloobin baa lagu leeyahay ina aadanow geelu markaa tawaaduc buu leeyahay tawaaduc dhul isdhig adiguna muuminow waa inaad ahaataa qof hayina oo layina hayin layin qof dabacsan oo jilicsan oo kibir aan lahayn waa inaad ahaataa oo mutawaadica oo tawaaduc badan waa sifaadka markaa ilaahay qofka muuminka uu ku jeclaado xagga tawaaducana waxaa lagu leeyahay geela kaga dayo wa ila samaa'i kayfa ruficat
حق همد سريسنا وين السماء إكتو السماء أتكون ضيتها سماء وحول بهدي الله جوجنا ما لقاري كرا لا ما قاري كرا مؤمن كهم يسوع إنه سريا هذا آخر نقطنا وين الإله جنة الفردوس أدوي دي ستا هذا الدنيا نقطنا الدنيا اللفت جا قعمها الله بقى صيحه وبين آذن كقعنته هصدق الله جمله وين السقيستاي وين الحوكستا أود همد أدو أي نقطة إن النفط هذا كلي أد واحترينه أمة المسلمين تقدم على جرب أين أد واحتر ويالته وإلى الجبال كيف نصبت بورها صدر لك اللوجو قتبي إج دبائل بائمن بورت ما دقاقيس دوفان بادع بورت ما دقاقيس كليل بائمن بورت ما دقاقيس أبار بادع بورت وأبور وين الحق استقامة كسجنان إلهي أمر جيس أتكسجنان يسوع الدين الإسلام كأتكسجنان يسد وين ديالتها صفة بورت وين ديالتها صفة ورقدها هيلن ورقدها صفات جوا عينك ورقدها هالكات الله دبيش حاجة أمريكا كتير مادنا جدار كابي كل لكتا حاجة بريك أمريكا كتير مادنا جدار ككله كل لكتا دبيش وينك وقاد قادن إم معها النقنين أبو النبي يقول إم معه كما ركتنا يجي هذا دت كان أنا جو الله السعداء كقف والبيد هذا أنا جو مع جانا هاي هالنقنين أبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام وكأردنا يدتك هدي ونكسنا هذا ندوان ونكسنا هنا دتك هذا حمادنا دتك كم من نقنينا هالنقنين أبو النبي يقول كاس ولكن وطنوا أنفسكم بالنبي يقول نفتنا وضد حقا كسوق أبو النبي يقول يو دين إلهي قبصدا ودين إلهي استقامة كويشة دتك هذا ونكسنا هذا لو ونكسنا هذا أبو النبي يقول دتك هذا حمادنا حمانين أبو رسولك يقول سومالي ذات هذا دماردان راعي هسكر راعي عيد والبا دنقا قالها نقول كلبلنا على قد في تمارك تاني وررك الدنيا دي وررك السياسيين دميرك مقالوين كدحديد بيها لو قد انسدو لبدا با laga xidhaa maxaa looga xidhaa ya inuu xagga daymoon labadaas laga xidhaa maxaa looga xidhaa hadeer hortaada eeg weeyaan waayo hadii labadan laga deyn lahaa labadan dhinac laga xidhaa hadii laga deyn lahaa baabuurka xagga ka soo socdo arki lahaa uu ka didi lahaa baa leeyay lidaalika waa loo fikiro labadaaba laga xidhay adiguna markaad noqoto diintaada islaamka inaad ku sugnaato labada dhinac ka xidho waxaad hadaf ka dhiganaysaa ilaahay jalla wa ala inaad raali gelisid ilaahay inaad adeecdid oo deegtid kitaabka ilaahay jalla wa ala munazzalka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wa salaam mutahharada marka wa ila aljibali kayfa nusibat buur waa inaad noqotaa buur xagga istiqaamada wa ila al-ardi kayfa sudihat sifada dhulkuna waa sifadee baa leeyo dhulku wuxuu leeyahay adkaysi buu leeyahay adkayso adiguna biyo kulul baa lagu shubi oran maayo waa la qodi oran maayo wasakhda adduunka oo dhan baa inta dhulka la qodo lagu shubaa oran maayo baytalmay baad ka dhigatay oo saxaradaada iyo kaadidaada ayuu ku qariyaa oran maayo waliba sifada dhulka uu leeyahay taxamul kaliya maaha wixii isaga soo galaba dhulku uu badilaa baa leeyahay afartaas sifa quraanka ilaahay markuu kaga waramayo suuratul ghaashiya maaha موضوع القرآن كوشيء موضوع سهل حمود صفات باكوجر ماشى تصالوين بالقولية كقاضو حاجة تواضع أنا جيلك كقضيو حاجة علو الهمة همة دادوين سر رئيسنا سمد إيجو سمد اللي قاعد كريم معيو وأنا أدقونا حاجة سر وين تكون حدناتا حاجة سر دولك هكون حدنان واحد دولك كدعاية يا هذا لا ضدك دولك جوج إليه ينكو سامين حاجة سمدا waxa lagu tilmaamay waa maxay warka Ilaahay Azza wa Jalla iyo warka Nabi Maxamed ay ku sheegeen labada war ha ku saameeyaan wixii kale oo dhan ayuuna ku saameyn khabarka Ilaahay khabarka Nabigu ha ku saameeyaan khabarka ayuuna ku saameyn xaga istiqaamadana buurta eego buurtu ma dhaqaaqdo ha dhaqaaqin adiguna dabayla adduunka dusheeda kugu soo maraya abaar baa iman ha dhaqaaqin diintaada ku sugnow afooyin baa imanaya dhaqaaqina diintaada ku sugnow fasaad baa imanaya khaasatan zamankan maanta aan joogno waa zaman khatar weeyaan
aalaadkan aan gacmaha ku sidano waa sayf duu xadayn weeyaan waa sayf laba aflaya xagga hadaad u qaadatana way ku goynaysaa xagga khayrka hadaad u qaadatana adaa ku goynaya fasaadkii awal meelaha loo samaystay la tagi jiray imika waxa laga dhigay keli qof walba gacanta loo suray marka waa zaman alfitan uu nabigu soo sheegay yiri calayhi salaatu wasalaam baadiru bil a'mal amalka saalixa u degdega war amalka wanaagsan u degdega buu nabigu yiri satakunu fitanan ka qita'i al-layl al-mudlim habeenka saacad saacada ka dambaysa sida u sii kala mugdi badan tahay ayaa zamanka uu ka dambeeyana fitanta ayaa sii ziyaadi doonta buu rasuulku yiri waxa iman doonta buu nabigu yiri inuu ninku waa bariisto inuu galabaysto isagoo iimaan qaba waaguna u bariyay isagoo gaaloobay saaka waxa uu ku jiray a'maal ilaahay u dhaweynaysa galabtiina waxaad ku arkaysaa isagoo ku jira a'maasha dhanida lagu gaaloobayay yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kaafiran wa bi'ada wayan subaxdii khayr buu ka shaqeynay oo ku aragtay galabtana macaasiya shar buu ku dhex jiraa masas saxaabada rasuulku ridwaanullaahi calayhim ajmaciin waxay eegi jireen baa la yidhi qofku marka uu dhimanaya wuxuu ku khaatimaystay eegi jireen baa la yidhi meel wanaagsan buu ku dhintay mise meel xun buu ku dhintay marka gelinka hore muumin buu ahaa gelinka dambe siduu gaal u noqonaya gelinka dambe khayr gelinka hore khayr baad ku aragtay gelinka dambena waxaad ku arkaysaa baa laga yaabaa acmaashi dadku ay ku gaaloobeen inuu ku dhex jiro yabiicu diinahu bicarada min addunya buu nabigu yidhi diintii sii dhannayd wuxuu dhaafsanayaa dheef yaro adduunyada lacag yar waxaan xasuustaa beri jamaacan ka dirnay jabuuti khaarijina oo ilaahay darti u socota waddanka Malawi la yidhaah bay ku baxeen markaasaa loo sheegay oo lagu yidhi meeshan waxaa waddankan xero qaxooti oo dad Soomaaliya ay joogaan ayaa ku taala jamaacaddii halkii bay ziyaarteen looma ogola meesha inay galaan masaajid u dhow baa lagu dajiyay way booqdeen dadkii bay la hadleen oday baa markaa jamaacaddii galabtii u yimid oday ordaya markaasuu adeerayaal inankaygi ayaa gaalnimo qarka u saaran kaalaya ila booqdo oo ku xajiye diinta islaamka inuu iga gaaloobine oo adeer adigu muslim baa tahay Soomaalina waa tahay ha inankaaguna waa muslim oo adiga dhalay Soomaaliin ha hooyadiina muslimad Soomaaliyeed ha sidoo u gaaloobi toddobaadkan qolooyinka ay hay'adu ay qaadayso ee dhulka gaalada loo dhoofinayo ayaa magaciisa lagu sheegay inuu ku jiro hay'aduna dadka ma qaado ma dhoofiso ilaa shuruud bay ku xidhaa shuruudda ay ku xidhaysa waxa kamida kitaabka quraanka inta dhulka loo dhigaa leeyahay ku joogso la ilaaha illa allah hadaad socotaan ajiib baad arkaysaan markaasay jamaacaddii waxay yidhahdeen annaka booqanayne adigoo adeer iska fadhi noo tilmaam meesha uu ka degan yahay xerada markaasuu farta ugu fiiquu yidhi qolkaa buu ku jiraa halkii bay ugu tageen waa nin dhallinyaro ah oo dadkeenna mar markuu jamaacaddii arkay buu ka yaraa iska qoslay wuxuu yidhi cidda inii soo dirtaan ogahay buu cidda iniga dambaysay inii soo dirtay baan garanayaa waa ayo dee waa aabbahay buu yidhi wuxuuna inigu soo yidhi uu gaaloobayaa anuu ma gaaloobaya buu yidhi shardiga laygu xidhay waan ku dhoofayaa uun laakiin diinta qalbigaan ku haysan qalbiga may ka baxaysaa buu yidhi warkaa ma soconaya يبيع دينه بعرض نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هذا الأفكيسا كما أردن إلا وحو نبي شيء والله أركي أقادا ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام معجزاتك إلهي نبي محمد السيبا كمدا إنه وحيابها إمن دونا وكسي ورم الرسول مركا فتن باسعة الزمن الفتن ما قال إنكم أنت marka muuminka waa inuu eega mar walba waa inuu ku dadaalo istiqaama ala diin ku sugno diinta islaamka
biyadaad ku dhargi khayr oo dhan diintu ku jira barwaaqo haddaad doonay diintaada ku sugnow qisas fara badan baa ilaahay quraanka inoogu sheegay qar boqortooya lagu ibtileeyay boqortinimadii la soo diristay diintooda kamay leexin waa nabi Suleymaan alayhi salaam qisadiisa akhriso haddaad leedahay anigu madax baan ahay oo zamanka ninka madaxu diinta islaamka inuu ku dhaqmo dadkiisana uu ku dhaqo way adag tahay haddaad leedahay nabiyullaahi Suleymaan alayhi salaam qisadiisii baa quraanku ku qeexay dhageyso akhriso oo culimada weydiiyay boqor afartiin inay adduunka u soo talisay nin kamida ayuu ahaa waliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini'aadanka kaliya ay haystaan mulki rabbaani abu hayo ilaahay baa siiyay oo waxa kamida mulkiga nabi Suleymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariidiya jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaatiinta ayaa aqaladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaana jawaahirtii dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbiraha oo dhan buu nabi Suleymaan uu yaqaanay وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها boqortooyada ilaa halka gaarsiisa maxaad u malayn quraan hadlaysa hadalkeegi la maqashiye war boqor nuucay adduunka ma jira ma soo maray may hadduu soo marayna waa Suleymaan alayhi salaam cid kale ma nabi Suleymaan nabigaas mulkiga inta la ilaahay siiyayna ilaahay taacadiisa ma dhaafin ilaahay dhikrigiisa ma halmaamin hal maalin kaliya quraanka ilaahay ku sheegay fi suurati as-saad وعلى فرضه آذو جعلا طبعا فرضها أنا وأن جعلها في كل الزمان فرضه هو شيء غالية فرضه سي وكوكل جري أيا صدى الله صهور مريبا الليلي ساعده ساعد إلهي ذكري سمين جري وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ساعد وحاجر إلهي للمنا جودو وقال لك هوريه قال لك الدنبوي أيام وأنه قفك مؤمن كقرتا ساعده وحاجر إلهي ونوجد يلا دونيو إن الدنيا انتو كإيمانو مساجد صوغ لون إلهي ودوانو إلهي لمنا جونو ساعدي ذكرك وسمين جرو ربك لمنا جون جري أيا فرضه صدا الله صهور مريه فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وكي لا قرآن كوكو شيء فرضه بالهرمري وحولي فرضها هذه هرمرسان وحي إيقام مشغوليين إلهي حسكي بيقام مشغوليين بيولي ذكري أن إلهي حسكيسا أن قلبك مركان ذكرنا أن كم عن سنة أي إيقام مشغوليين كل قود يسوع عليه يقول يسوع عليه كركا كوضا جرى يعني وحلي وحي طاعد إلهي كم مشغولين نبيد وقورتك قوينيين إنك صلاة دان تكنيني إمن سجار با الدكانة دين ونقا مشغولين الدكانة دين ولي ما بحنا من كيبا أبحيو أورانكار الدكان كاسمر علي مركان صلاة دقالان كسهويا إلهي درتيبا أبحيو مجرى ما دعي كرتا ما دعي كرتو فرضه سي وكو حرقون جري وليبا جهادك وكو قال جري أيا مركز سيدا الله هرمريي وحي كم مشغولين وقلبكيسي أي اللوسيين معانكي مركو إلهي حصوصنا وقلبك كم مع سجري اللوسيين مركا بيقول يقول سعلية إيه سعلية بيقول وما حدا سعلية والله سوى هذا قبت قورتك وذا قوي بيقول إلهي بيقول مشغولين ضاعد يسيه مركا هداد مدحت هينا مدحت وحال دونيا إنه يكون إذا نبي الله سليمان عليه السلام ملكك أنت اللي يقول هايستي حق إلهينا وكوكوتي حق بني آدم كان وكوكوتو وكو إلى ليبا ليري حق إلهينا ما تضيعن حق بني آدم كأيكول هاينا ما تضيعن وعونا كبحي أدونك
isagoo nebi oo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay haka quraanka ilaahay ku sheegay istiqaama marka hadda dabaqad kasto muslimiinta kamida aad ku lug leedahay saadiinta ugu sugnaan lahayd daliil baa lagu hayaa daliil haddaad bukaana tahayna nebi ayuuba u daliila nebi ayuub 18 sano bukaan ahaa geed hoos jiifay marna ilaahay taacadiisa iyo digrigiisa ma daynin malik nebi rasuula waa la ikhtibaaray todobadii hablood uu lahaa mar kaliya laga wada dilay oo nafta laga wada qabtay uska sabray todobadii wiil uu lahaana mar kaliya israaceen oo uska sabray baarihi iyo tijaaradii iyo xooluhu lahaa oo dhan mar kaliya laga qaaday uska sabray markaas jidhkiisa waliba xanuun lagu riday uska sabray xanuun nuuceeya gaadhay waxa la jidhkii intuu dhamaaday hariga iyo lafaha isku dhagan bas markaas wax ehela waxa uu soo hadhay xaaskiisii markaas qaraabadiisii ku yiraahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama anagu aan kaaga baxno may ana inaga fududo inaga tagay buuri ay tukubisay banaanka bay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ayaa culimada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tagaysay magaaladay u soo noqonayso dadkii u shaqeyn jirtay aqaladay ka shaqeyn jirtaa leeyahay wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz ayay iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenin jirtay geedka hoostiisa markaas ay ku tiraada ayuubow xanuunkan halka ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeenii ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadiisa la aqbala ayaa tahay ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadka ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahdaa 7 sanaan barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkeysan kara laanahay buu yiri barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysana ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan mid ka badan nicmada badan marka anbiyadu nicmaday eegeen mar walba dadna muncimka marka way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisu ku yiri 7 sano barwaaqo ku jirnay ma muddada yar baan u adkeysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalmaha kamida labadii dad isaga ugu dhaweeday qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri marka war u dhawaanay meeno xanuunkiisa inuu nagu soo tacaadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaas marka nabi ayuub maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurgurtay dadna meeshu ku xaajoonay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xagga buu uga dhaqaaqay halka buu marka ku ducaystay baa la yiri ducadiisana waa tan quraanka ilaahay noogu sheegay fi suurati al-anbiya wa idh nada wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin ayyub alayhi salam rabbigiibu u dhawaaqay oo rabbigiibu la munaajoodo u qayla dhaan dirto markiiba wuxuu yiri ilaahu aniga dhib baa isoo gaadho itaabatee adiguna kuwa naxariista ugu naxariis badan baa tahay ilaahu dhibka iga qaad buu yiri ilaahay markiiba ducadiisa waa ka aqbalay baa la yiri halkii uu joogay baa lagu yiri lugtaada dhulka ku dhifo urkud birijlika 18 sano nin jiifay xanuunsanaa awoodda jirkiisa ku jirta ee dhulka markuu haraatiyay biyo uu kaga keeni karaa waa awoodee يعني أذكو أسبابتي لك هالي ويان أنا كابيها صو صارينه لقت هذا يرضى قاجي بس أسبابتن الدنيا ده نركينا أردن نظام كإلهي بكون حجر أسبابتن سيدا جرك بني آدم كان روح ده يكون حجرته أيا أسبابتن الدون قادر كيسان نظام كإلهي بكون حجره مركا نظام كإلهي إيش إنه ما قبنا يسوع قدرة إلهي بعالم كان معمول سلوكتي والنبي أيوب سعود قاجيي لولكو كعليي لبدا لوغو دخدوده بيه كسوبخين با ليري لبا إلودو بيا إلنا waxaa la yiri ku maydho ilna waxa lagu yiri acab oo maydhay jirkiisi waa caadi oo cabay caloosha iyo gudaha wixii xanuun kaga jiro dhanba banaanka uga soo baxay oo soo kacay mar kaliya xaaskiisa magaalada ka timiday way ku wareegtay
iyadoo xishoonaysa markaa waxay tidhi oday ayuub la odhan jiray oo bukaan ahaa oo muddo dhowr iyo 10 sano halka aan la joogay oo maanta aan ka tagay magaaladaan ugu maqnaay oo aan u shaqo tagay miyuu dhintay ma dugaag baa qaatay waliba dhallinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaay formigiisii baad leedahay markaasuu yidhi ayuub waa aniga buu ka yidhi ana ayuub ayuubkii aad kaga tagtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha kal hore waxaan leeyahay bisheedii adduunka corona la sheegay wadanadeena Soomaaliya oo cabsi baa la yar dareemayay aaway imika muu jira dhulkeena war muu jira waxaad ogaataa marka war waxaan adduunka imanayo dhan waa xaalad bay dhaadin eeshiyaanku luqada carabiyaduna waa al ahwaal ilaahay baa keenay marka ahwaashan sida adiga lagu abuuray ayaa xaaladkan adduunka bini aadamka la soo darsaayana ilaahay baa abuuray barwaaqada ilaahay baa abuuray abaarta ilaahay baa abuuray xanuunka ilaahay baa keena caafimaadka ilaahay baa keena amniga ilaahay baa haya colaadda ilaahay baa keena mar waxayna soo martay magaaladeena Hargeysa maanta nabadda aad ku haysataan ree Hargeysa ilaahay ugu xamdiyo qul alxamdulillah dhahada mar waxaan imid anigu daanta xagga wixii ka xiga magaaladani hal qof una socon hal qof dameer iyo ay uu dhulka naga soo baxaysa qalada dhexdooda maantana ilaahay fadliga dhinac walba waa ta magaalada u ballaaratay madaaristi macaahidi masaajidi ganacsiga da shukriga in la badiyo Soomaa oo ilaahay ku mahadino marka ahwaal hadday timaado maaha wax daa'ima ogow waa waxina soo maray oo tagaya habeenku ku soo maray oo baxaya famahma tala al-laylu fala budda min tulu'i al-fajr famahma tala al-umru fala budda min dukhul al-qabr waligiiba habeenku ha dheeraade waa bari baa ku xiga waligaaba noloshu ha ku dheeraatee geeri baa ku xigta sidaas oo kale weeyaan haddaad barwaaqa maanta aad ku jirto xaaladda barwaaqada ka faa'iideyso oo ilaahay ugu dhawow haddaad abaar iyo saboolnimo iyo faqri ay kula soo darsaan iyada laftigeegu waa xaalad ilaahay baa kugu eegaye ka faa'iideyso ilaahay ugu dhawow culimada islaamka nin kamida ayaa oran jiray laba faras ba adduunka ilaahay noo dhigay buu ilaahay loogu dhawaadaa walla yaabay laba faras faras magaciisa waxa la yiraahdaa ash-shukr faraska kalena waxa la yiraahdaa buu as-sabr adkaysi barwaaqa hadday nala soo daristo waa shukriyeynaa ilaahay baan ugu dhawaanaynaa barwaaqada balaayo iyo dhibaato qaadi karimeynaa hadday nala soo darsaana waa sabraynaa oo diinteena istiqaamo ku yeelanaynaa iyadana ilaahay baan ugu dhawaanaynaa buu yiri aswaas ta'arraf ila allah fi ar-rakha ya'rifuka shidda barwaaqada ilaahay ku garo abaartiya dhibaatada markay kugu dhacdo ilaahay ku garan doona adigana marka bukaan hadda tahay ayuub baa ku daliila sidoo diinta istiqaamada ugu yeeshay istiqaamo ugu yeelo maal qabeen hadda tahayna kam tujar ba adduunka soo marto ehlullah iyo ilaahay taqaan jazakallahu khayr dhalinyar hadda tahayna dhalinyarnimada ilaahaga ku garo oo todobada ilaahay u hareynaya waxa kamid ah nabigu yiri shaabun nashaa fi taa'ati allah nin dhalinyaro ah oo dhalinyarnimadiisa ilaahay ku barbaaray cibaadadiisa taa'ada ilaahay ku barbaaray dhalinyarnimaduna waa qayb kamid ah waalida buu rasuulku yiri wala yahay ninka dhalinyaradu markuu dhalinyaro yahay hadii ilaahay uu toosiyo oo ilaahay diinta istiqaamo uu kugu siiyo adduunkan iyo aakhiro wad libaantay ogow فنستقيم إلهي أمر كيسان كتوسنانو إن شاء الله ده هذا مال في عنبان هايستانا أولومي مايو وضد مسلمين أيان ده جوغا ضد مسلمين أيان كده نولهي أولومي ماينا هكدق من نبي الله آدم عليه السلام استقب ماشي لقو امتحام الجنة ده دي هاي
jannada meel ka fiican ma jirta halkaas lagu ikhtibaar isaga jannada dhexdeeda fakula minha haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin shaydaan ayaa u yimid ibliis alayhi la'na dana uu waswaasiyo wuxuu ku yiri geedkaas cunidiisa laga reebay manfaacada ku jirta ma ku sheega ha no sheeg haddaad adiga xawa geedka aad cuni lahaydeen adiga iyo xawa laba midun baad noqon lahaydeen an takuna malakayni aw takuna min al-khalidina laba malag baad noqon lahaydeen ama laba waligood jannada ku waariyay ahaan lahaydeen buu ku yiri wa dakhil al-janna lagu imtixaan nabi aadam alayhi salaam deedna gafkiibu ku dhacay jannadii baa laga soo saaray oo maalinka qiyaamaha dadku markay nabi aadam u tagaan ee shafaacada ay weydiistaan ay leeyihiin abul bashar baa tahay adana nabiyada ugu horeeyay ilaahay nooga ergee waa ka oranaya gafkii aan jannada dhexdeeda ku galay ayaaba jannada inaga soo saaray buu leeyahay caabid baan ahay oo cibaadad badan baan ahay ilaahay baan caabudaanaha ku dagmin baa leeydi ibliis samada meel ka banaanay ma jirto ilaa isaguba ilaahay buu ku caabuday hadana malaa'ikta dhexdeeda isagoo ku nool oo buqcad kasto samada ku taala dusheeda ilaahay ku caabudayna isagana halkaaba lagu imtixaamo lagu fidneeyay ibliis alayhi la'na hatta آدم عليه السلام مركي الله صوري سورة ديسة انت أنا الروح ذا لقوا أفوفين أفرت السنة اللي أيون نبي آدم إنجيجي بابا ديسي أي إنجيجي سي مركز ملاك تصدق ويجان ويكعب صدام مركز ويمادان إبليس عليه اللعنة أو ملاك أيو أركيين إنه يحي كإلهي أيك وقدو مركز بيكور هذا حامدو إلهي نوبري أو نوبري هذا دعاء هذا الله أقبله يا وايا امتحان با سو سocde imtixaanka inaan ku fidnowna ayaan ka baqaynaa ilaahay noo bari bay ku yiraahdeen imtixaanka inaan ku dhicino ilaahay naga badbaadiyo markaas uu duceeyaa yiraahda ilaahay imtixaanka ay naga badbaadiyo iyaku u ducayn isagu iska reeba ducadii iyaka loo aqbalay isageena ikhtibaarkiiba ku dhacay baa la yiri oo muxuu diiday sujuudi nabi aadam buu iska diiday marka caabid baan ahay oo meel fiican man ilaahay ku caabudayaa bay culimadu leeyihiin ha ku dagmina waa inaad cabsootaa oo cabsi ilaahay ku caabudaa cabsidaas marka waxay keenaysaa inaad diintaada istiqaamo ku yeelatid oo qoom baan leeyahay cilmi baan leehayna ha ku dagmin baa leeyadana nin baa isagana cilmiga lagu imtixaamay isagoo caalima ayaa la fidneeyay dadna markaaba diintiisii qalbiga diintii iyo cilmigu laha qalbigiisa ilaahay uu ka saaray bal'aan binu baacura ninkii la oran jiray weeyaan ee reer bani israa'iil ahaa fi zaman Musa alayhi salam fi surati al-a'raf wa ka ilaahay ku sheegay watul alayhim naba alladhi aataynaahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin waxaad uga warantaaba nabiga lagu yiri kalladhi ki reer bani israa'iil ahaa hatta magaciisa ilaahay ma sheegin oo waxa la siiyay aayaadkaygan siinay baa ilaahay yiri aayaad ismullahi al-a'zam ka la baray baa la yiri magaca ilaahay ee weyn ee hadii ilaahay wax lagu weydiisto ilaahay ducada uu soo celinayn ayaa ilaahay ninka uu baray baa la yiri tafsiirka qurtubiga ayaa بعض العلماء waxay qabaan meel alle meeshu eega carshigu ka arki jiray baa leeyay haduu xaga eega carshigu arkayay haduu xaga eega carshiga raxmaanku arkayay haduu xaga eega carshiga ilaahay buu arkayay qolana waxay yiraahdeen ma ismullahi al-a'zam ka la baray oo ducadiisa mustajaaba ahayd madiinatul qudus buna ku noolaa markaas nabi Muuse alayhi salaam iyo qoomkiisii waxay dooneen inay qudus ay ka xoreeyaan nimanka jabbaariinta gaalada niman walaalo oo jabbaariin oo gaala ah ayaa qudus haysanayay marka nabi Muuse iyo qoomkiisu waxay ku dhaqaaqeen inay jihaad intay ku qaadaan qudus ay nimanka jabbaarinta ay ka xoreeyaan marka ninkan bal'am bin baacur la oran jiray ama bal'am bin baacura labadaba waa la yiraahdee ayay u yimaadeen marka bay ku yiraahdeen Muuse nagu soo socda iyo qoomkiisii oo wada socda Muuse waa nin xadiid oo adag
ciidanna u wataa ciidan fara badanna u wataa hadduu magaalada naga qabsadana uu nahalaagi oo una baabi'in dee nin waxaa tahay weliyo ilaahay u dhowa ducadiisa la aqbale xoolo iyo lacagba annaga ku siinayne nebi muuse naga habaar bay ku yidhahdeen way qabyaaladeeyeen dee annaga isku tolo bay ka yidhahdeen soomaalidana qabyaalad baa lagu imtixaamay soo maaha qabyaalad haddaad raacdo khatar weeyaan diintaad iyo khatar baad ku jirtaayo ogow qabiili ha noqona waxaad noqotaa nin qabiil ka sarreeya wax islaamnimo ahayn inay ku deeqin ninka muslimku waa laandheere hal bilyan iyo 500 milyan oo muslimiin oo adduunyada ku nool baa tolkaya insha Allah dhahada bari baan qisamayni ugu daraa jamaacan ahayno waagii daaraha dhaadheer Mareykanka la qarxiyay bay ahayd 2001 bay ahayd maahan waxa dhaca qaraxo 2004 baan markaa annaguna Mareykan annagoo jamaaca ayaan magaalada New York ka dhaadhacnay maniya Sheekh Saciid ilaa ku naxariis 5-6 baan ahayn mataarka JF Kennedy airportka New York marka xiraasadu iyo ilaalintu waa adag tahay ayda iyo askarta isleeka barkana iska sidana anako weelashayadii aan cuntada ku karsaneen waa iska wadanaa jamaacada dacwa waa cajiib moogtahay diyaaraduna waa Kuwaitiya arday jaamiciyiin marka reer Kuwait diyaaradda ka buuxa waa 2004 Mareykankana waa la fuujigan yahay saasa dadku indhaha kala hayaan diyaaradda dhexdeeda ardaydan jaamiciyiinta wayna la yaaban yihiin raggan karkan formigan leh ee haddana New York ka dhaadhacaya maxay yihiin حتى هدان السلام عليكم ندانو واسكا كايا ايغayaan yalla nagu sawirin macnaha wadaadka yeelkadood airportkii ma ka daadagnay dadkii jaamacadaha u socday nin walba qol baa la galay interview la yeeshay qol annaki mar alle markayna arkeen nimankii immigrationkii ma group baatihin ha annaku jamaaca nahay welcome halkan kaalaya kiishiye gooniye intayna joojiyeen kiishiye waa meesha immigrationku ay baasaboorada kaga dhiftaan halka dadka maalin dhan la haysanayay 35 saacadan eega 35 daqiiqo noogu dhameeyeen annaka hawlaha yagii markaasaan halka imano alaabteedii baan iska qaadanay kuwa Soomaaliya arkay mar alle markay Soomaalidina arkeen ee Soomaali inaan nahayna ay noo garteen way baxsadeen maxay u baxsanayaan yaan wadaadada la inagu agsawirin markaasaan jamaacadii ku iri unduru eega baan ku iri dadkii nala afka aha ee isku wadanka aan ka wada imanay soo naga baxsan maayaan haddaba raggan istiqbaaloon haddana bal eega yaana istiqbaalay markaa niman dhakhtar ah qaarkood Mareykan cadaan ay yihiin qaarna Mareykan madow ay yihiin qaarna niman Aasiyaatiga oo wadankaas dhakhtarada ugu qiimo badan New York gudaheega markaas nin walba oo jamaacadii kamid ah hal gaari baa la noo diyaariyay hal gaari mar alle markaan u tagnay noogu dhagdhageen markaasaan jamaacadii ku iri innaka laandhaare haddaba arka daaciga laandheera baan ku iri ninka muslimka ee ilaahay dartii u socda waa ka laandheerinimadiisu eega baan ku iri marka waxaan qisadan u soo qaateen iigu sheegaya wax kala maaha war muslimnimo meel ka sokaysa ha ku qancinba haddaad muslimnimo aad ku faanto oo qofka walaalka ee muslimnimo aad ku jeclaato oo muslimnimada islaamnimada aan isku xidhiidhino oo islaamnimada aan isku tixgelino adaa laandheere ogow ninkani marka fi suurati al-a'raaf qisadiisa lagaga warramay اسم الله الأعظم كإلهي أفري بالليل دعاء الإسلام مستجابة هاي لكن من تركيا أي تيوي ما دين بيكوير هذا النبي موسى يقوم كيسي آيات دقال إنه سوق هذا نجا حبار مركز سويا وحول هدان موسى حباره الدنيا دي آخرة دي ويجا بابي بودي ما ده قلنا بابين موسى وانين حديد وأذك نقال هذا حدو سوق النرابي مايو واحد دون تناك كوسينا نجا حبار وحال يدي ويقلن دقال كباب بلامي نبي موسى عليه السلام وحال يدي وجبين كري ويا قالدي مركز النبي موسى إله إلا مناجودي مركز إلهي كيري
addoon addoommahayga ka mid a meesha ku jiro isagaa ini habaaraya buu yidhi markaasuu nebi muuse yidhi yaa rabbi baatil marba hadduu ku taagan yahay uu dad baatil wadana uu u kaalmaynayo diintan adiga isaga inaga dhaxayseed adiguna ku xurmaynaysid ku qadarinaysid ilaahu diintaas iyo ismullahi alacdamka aad bartay ilaahu ka saar buu yidhi ka masax qalbigiisa waxaa la yidhi hal mar keliya qalbigiisa unbaa wax ka soo kaceenoo wax shimbir oo kale ninka afkiisa ka baxay baa la yidhi deedna carabkii baa soo dhacay markaasay leeyihiin ciidankii muusena way soo durqayaan kolba soo dhowaanayaan markaasay war aaway habaarkii wadde markaa buu leeyahay haddaan habaartamana habaarkaygu ininku nagu dhacayaa buu nebi muuse ku dhici maayo haddee toole waayo xiriirkii aniga ilaahay naga dhexeeyaa meesha ka baxay buu yidhi haddee toole wax kaloo nigu taageera ma hayee laakiin makri baan hayaa buu yidhi makri shirqool baa nebi muuse qoomkiisa u dhigaynaaye shirqoolkaa baan nii sheegaya farsamada ku dagaalgala buu yidhi waa maxay farsamada wuxuu yidhi gabdhihiinna yaryar ee bikiradaha dhar qurux badan intood u xidhaan nebi muuse qoomkiisa ka horgeeya buu yidhi daadna way ku fidnoobayaan oo dadka nebi muuse la socda gabdhaha yaryar bay ku fidnoobayaan markay zinada iyo macaasida ay ku dhacaanna hee ilaahay gargaarkiisa ka faydmayay buu cuquba ku soo degaysa markaas marka makri talada inaan nasiye mooyaane habaar iiga soconaya imika ma jiro waa ninka ilaahay yidhi kalladii aataynaahu aayaatina maxaa cilmiga intaa la eg baa ilaahay baray ismullahi alacdamka inuu yaqaano waxaa la yidhi waxa keliya ee ninkaa dariiqa ka saartee leexisay waa casabiyad waa qabyaalad marka caalim baan ahay aqoon baan leehay ilaahay baan u dhowahay ha ku degmin dad fiican baan la joogaana ha ku degminoo abujahal iyo abulahabahe nebi maxamed bay arkeen sal alla alay wasalam hadalkii nebi maxamed bay maqleen qur-aanku nebi maxamed akhrinayay bay dhegaysteen haddana way ku intifaaci waayeen marka ilaahay tabaaraka wa tacaala istiqaamahayna siiyo waa inaan diinteenna ku sugnaano istaqiim dabayla imanaya dabayl socotaa soo socota dabaylo fara badan nebigaa sii sheegay sal alla alay wasalam fitan baa iman doonta oo zamanba zamanka ka dambeeya xaaladdu sii adkaanaysaa nebigaa sheegay ilaa saacadda qiyaamadu ay dhici doonto waa inuu qofka muuminku diintiisa ku sugnaadaa أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل إلهي أكتيس عملك اللو جعل بدن يهوى وعملك للدائم للجوكتيو ولو عملك سحب يراضيه أسبابت استقامة الدين تكوكسين سواحا كميدا بعلمة ليهن وإن تكون نولاتا وإن تأيقتا بلشد ونكسن مجتمع ونكسن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل بنبي قولي صاحبك دين تأو هايستو أيا أديغنا الدين كون نقونا يسي نين ولو نكا الله صاحب إزكايك برسولك يري بركا مجمعين نادام دلنير وبدن يهي زمن كنا وزمن دلنير هذا آد وحن ويهي وزمن أهلس أي كسو هقاقين لنا عنا الزمن كوا كفي عن يهيو ما شاء الله دعوة بعد هاي ستان مساجد بقى نور اسم يسا خير كبا إنو بدن آيا اجتماعي آيا الله قبنا يا حفلة يا ندوات إسلامية أي علماء إنه قبنا يا ورماشى خير كلا وين كورد نويان صاحبك صاحب دين تأوقبه أي أديك الدين كون نقول يسبوا النبي قولي نولو نك الله صاحب إسكائب مركب الشدة ونعكسن هذا الله صاحبته دين هذا ويكوب بادي وايو لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي بنبي قولي الله صاحب إلا قف مؤمنا مويانه هذا واحد بحين سنة قفك الله كبقى لسيب رسولك يريد لأن قفك الله كبقى لحداد وحسيسو إلهي بوجود دوان أجر يا حسنات نادوغنا واتكهلي قفك إيمانك له المساجد علماء دعوة خيرك كحرا هذا العلاقة الله يلا الله صاحبته هذا كان خيرك قفك سكوجيدي سيدنا كريم بني إسرائيل ها إسقالي إسقاشك النفقوي وهو يدي عالم يتلمام أبو يري نراهب الله شيء الراهب كونك عابدك راهبك وحو كو يري
markuu yidhi 99 naf baan gooyay toobad maan leeyahay maya toobad ma lihid buu ka yidhi deedna 100 buu kaga dhigay isagii haddana ninkii ma fadhiisane war nin caalima ila doona caalim baa loo tilmaamay war ninkaas axkaamta yaqaanay u tag caalimkii markuu u yimidayna deedna markaasuu yidhi haa toobad waad leedahay laakiin toobadaada shuruudeeda waxaa ka mid ah dhulkan aad joogto waa dhul xun waa inaad dhulkan aad bedishaa oo xaggeed u bedelaysaa dhulka meel heblaaye la yidhaahdo waa dhul wanaagsan dad wanaagsan oo ilaahay caabudo khayr badan baa ku noole dadka u tag buudho ilaahay caabudayaan la caabud sidaa unbay toobadaadu adiga ku hagaagaysaa deedna ninkii uu xamaan qaatay jidka bartamaha isagoo maraya ayaa ajashiisii timiday malaa'ikatulcadaab iyo malaa'ikaturaxma isku qabatay malaa'ikatulcadaab waxay leeyihiin ninkani waa ahlannaar oo 100 naf buu qabaa malaa'ikaturaxmana waxay leeyihiin jaa'a taa'iban ila allahi caza wajalla ilaahay xaggiisa u soo noqdo ninkani toobad buu u soo socdee xagga naxariista ilaahay baa loo qaadayaa malag suurad aadamiyela ayaa loo keeno la yidhi u kala garnaq labada malag markaasaa la yidhi meeshuu dembiga uu ku galay iyo meeshuu raba inuu u hijroodaa la yidhi u qiyaasa dhulkuu u socday ee uu hijroonayey ayaa ilaahay u waxyooduu ku yidhi addoonkayga u dhowow taakay dheeraatay buu rasuulku yidhi taako tii u socdayba waxyi min allaahi baa yimid u dhowow addoonkayga inuu naariga gala ma jecliye dhulkaygiiyo addoonkayga u dhowow uu dhowaaday taakuu dheeraaday dhulkuu u socday baa markaa loo qaado malaa'ikaturaxma baa qaaday marka mujtamaca saamayn buu noloshaada ku yeelan imanka mujtamacyadeennan markaad masaajidka markuu qofku joogo culammada wacdigooga ama khayrkooga uu maqlaayo waa sida bahalkan taayirkan baabuurta naqaska la buuxiyo ama kubadda tuyibka waa la buuxin irbad haddii lagu mudo ka waran way sii daynaysaa markiiba masaajidka markaad soo gasheed wacdigaa dhegaysatay iimaankaagu iyo khayrkaagu u biirayaa waxaad jeclaanaysaa noloshu inay sidaa uun iska ahaato laakiin markaad maqaaxida fadhiisata ama bannaanka aad u baxdo markaaba ishaadu ma waxay ku dhacaysaa wax iimaankaaga dhaawacaya mise wax iimaankaaga kubcinaya yaa wax iimaankaaga dhaawacayaad maanta arkaysaa markaa zaman adag baan ku jirnaa maanta waa inaan bulshada wanaagsan markaa xaggayga u badannaa masaajidda ku xidhnaanaa dacwadda ku xidhnaa nafteenna khayrkaa socdana aan cilaaqo la yeelannaa soo diyaar manin insha allah inaga aqbalo wixii wanaag ilaahayna soo dhex mariyana isaga ayaa fadligaa iska leh wixii gaf naga dhacayna ilaahay ha inooga dembi dhaafo kulligeen ilaahayna miisaanka xasanaadka dhegaysigiina iyo hadalkayga ha inoo wada saaro khaatimadan allah inoo hagaajiyo dembigeenna allah ha dhaafo dembiga waalidiinteenna allah ha dhaafo diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allah ha shaafiyo mowtaadkeenna allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo dad badan oo muslimiina duca dalbanayo wada xanuunsana caafimaad sariica allah ha siiyo qof walba alluu ka kurbaysana kurbada allah ha ka qaado sala allahu calaa sayyidina maxamed